السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كيغا مركا لسود وهذا آدي هذا أقوم هالسنتين داوشة ميل كستو أجوبتان يوليبا سيكستا وآدي داونيسان وإن إلهان عمر وحين نوغناهي إن كونغريسكا مريكان كارهان أقل كهوسة أي كتر سنايد سلامركانا قوديغا أرميها ديبادا أي أقل كهوسة أي حبين كاهيد maanta aqalka hoose waxaan ognahay Republicaanka inay gacanta ku hayaan oo doorashadii ugu dambeysay xilliga dhexe ee November dhacday 222 xubnood inay leeyihiin dimuqraadiyiintuna 213 xubnood ay leeyihiin sidaasina 435 uu ku yahay sanadkii 2021 markii hoggaanka aqalka hoose ay gacanta ku hayeen xisbiga dimuqraadiga waxa ay gudiyadii ay ka saareen Marjorie Taylor Greene oo laga soo doortay Georgia oo lagu eedeeyay in kooxdan Queenan la yiraahdo ee wararka been abuurka baraha bulshada ku faafiya inay boombooninaysay waxyaabaha ay faafiyaan isla markaana talaalka ay wax been ka sheegayso cudur coronavirus-ka iyo Paul Gosar oo isaguna muuqaal animation soo sameeyay isagoo dilaya Alexandria Ocasio-Cortez oo dimuqraadiga isla markaana New York laga soo doortay isla markaana u hanjabaya madaxweyne Joe Biden oo hadda madaxweynaha wadanka Mareykanka ah Paul Gosar iyo Marjorie Taylor Greene maadaama sanadkii 2021 xisbiga dimuqraadigu ay u cadeeyeen gudiyada ay ku jireen inay ka saareen ayaa maanta haddana xisbiga Republicaanka waxa uu u codeeyay in Ilhaan Cumar laga saaro gudiga arrimaha dibadda oo ay ku jirtay haddaba afayeenka aqalka hoose waa Kevin McCarthy oo ognahay bishii January in 15 codeyn oo aqalka hoose ay qaadeen ugu dambeyn loo doortay oo xubno ka tirsan xisbigiisa oo 20 ay waxyaabo badan ay doonayeen inay kala heshiyaan ka hor inta aysan u codeynin isla markaana markii dambe loo codeeyay marka Kevin McCarthy ayaa la weydiiyay arintan farfar ku taagmiya ma ka argoosanaysaan xisbiga dimuqraadiga maadaama laba xubnood oo xisbigiina ka tirsan sanadkii 2021 ay ka saareen gudiyada ay ku jireen Kevin McCarthy oo afayeenka aqalka hoose wuxuu yiri arintu sida ma ahan Ilhaan Cumar gudiyada kale waa ay ku sii jiri doontaa laakiin gudigan maadaama siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku lug leeyahay ammaanka qaranka ay qatar ku tahay sidoo hadalka u dhigay sida darteed uma qalantay in gudigan arrimaha dibadda ay ka sii mid ahaato haddaba dood ayaa la geliyay Kevin McCarthy isagu awood ma uusan u lahayn in Ilhaan Cumar kaligii uu ka saaro ilaa ay aqalku uu cod u qaado laakiin waxa jirtay laba xubnood oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo labaduba California laga soo doorto oo kala ah Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo iyagu ka tirsanaa gudiga sirdoonka ee Mareykanka ayaa labadaba uu ka saaray isagu awood ayuu u lahaa labadaas gudiyada ay ku jireen inuu ka saaro toddobaadkii hore ayuu ka saaray Adam Schiff iyo Eric Swalwell saddexdoodana shalay toddobaadkii la soo dhaafay ay shir jaraa'id qabteen waa Ilhaan Cumar Adam Schiff iyo Eric Swalwell arintan waxay ku tilmaameen mid lagu bartilmaameedsanayo xubnaha muhiimka ah ee ku jira xisbiga dimuqraadiga marka cod ayuu maanta aqalka hoose u qaaday in Ilhaan Cumar laga saaro gudiga arrimaha dibadda ee Mareykanka ka hor inta aan codka la qaadin waxa jiray in Ilhaan Cumar ay istifaacday oo ka hadashay aqalka hoose xubno kalena ay ku eedeynayeen Ilhaan Cumar sababta looga saarayo gudiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee Mareykanka in ay tahay in ay ku lug lahayd hadallo nacayb ku saleysan oo dawladda Israa'iil ay ka sheegtay walow Ilhaan Cumar markii dambe arintaas raadgelin ay ka bixisay isla markaana ay tiri 10 ayaan ka bartay marka halkaasi ay ku soo bandhigeen waxyaabaha ay la tiigsanayaan iyo hadallo ay ka sheegtay weeraradii COVID-19 September sanadkii 2001 daarihii dheeraa ee New York lagu qaaday oo ay sheegtay arintaasi in tahay arin dadka muslimiinta lagu bartilmaameedsanayo oo hore ay ugu tilmaantay mid waxba kama jiraan marka arimahaas ayagoo u tiigsanaya ayaa Ilhaan Cumar waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in gudigaasi laga saaro haddaba Ilhaan Cumar waa ay ka hadashay maanta aqalka hoose wayna isdifaacday hadaladeedii waxa kamid ahaa oo halkaasi ay ka jeedisay waxa ay tiri anigu waxaan ahay qof soo galooti ah Afrika ka yimid qaxooti ah muslina isla markaana black ah laakiin waxaan ku faanayaa inaan ahay qof Mareykan ah waxa ay sidoo kale ay xaqiijisay in ay codka ay u qaadayaan hadda Congressku markaas ma aysan u qaadin ay u qaadayaan in ay qaadi karaan laakiin waxa ay sheegtay in hoggaankeeda uusan waxba iska bedeli doonin waxa ay sidoo kale Ilhaan Cumar intaas ay ku dartay dadka aan codka lahayn in ay waligeed u hadli doonto iyadoo sheegtay in sidoo kale ay ka hor imaan doonto waxyaabaha caalamka dhibaatada ku keenaya isla markaana ilaa iyo caalamku uu ka noqonayo guud ahaanba mid wanaagsan iyadoo cadaalad darro ku tilmaantay
isla markaana aan muwaadin Mareykan ahaan aysan ahayn ayay tiri in guddigan la iga saaro laakiin waxa aan ku faanaya ayay tiri Mareykannimadeeda iyo in ahay qof qaxooti ah soo galooti ah Afrika ka yimid Muslimna isla markaana balaag ah oo qof xijaaban oo Kongareeska Mareykanka qofkii u horeeyay oo soo gala in ahay Ilhaan Cumar racfaan ayay ka qaadan kartaa in ka saaristan guddiga anshaxa ee Kongareeska ay racfaan u gudbin kartaa wali ma aysan sheegin in racfaan ka qaadanayso iyo in kale codayntii la qaaday marka waxa uu codaysay 218 xubnood Ilhaan Cumar in laga saaro guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose iyadoo sidoo kalena 211 xubnood oo ay ka soo horjeesteen xisbiga dimuqraadiga dhamaantoodba waa ay ka soo horjeesteen waxa jiray sidoo kale xubin ka tirsan xisbiga Republicaanka oo hay laga soo doorto oo la yiraahdo David Jones in uu president yiri macnaha waan joogaa waa ma uusan diidin mana uusan ogolaanin waa uu ka aamusay macnaheeda iyadoo sidoo kalena xubnihii ka hadlay aqalka hoose oo Ilhaan Cumar in guddiga arrimaha dibadda laga saaro ka soo horjeestay ay ahaayeen xubnaha dimuqraadiga oo intooda badan ay difaacayeen waxa ay tiri Ilhaan Cumar iyada nafsad ahaanteedu waxa ay tiri lama yaabani in aniga la bartilmaameedsanayo macnaheedu waxay tahay in la iga dhigayo qof aan wax qiimo ah aan lahayn sidoo kale Alexandria Ocasio-Cortez ayaa waxa ay tiri haweenka midabka ah oo ula jeedo kuwa Laatiinka iyo kuwa Afrikaanka waliba muslimiintan ay ku jiraan in lagu bartilmaameedsanayo arrintan oo xubnaha Republicaanka ay bartilmaameedsanayaan sidoo Gregory Meeks oo isagana ka tirsan aqalka hoose oo dimuqraadiya ayaa isaguna waxa uu yiri arintan waxa ay u muuqataa arin cunsurinimo ah isla markaana lagu bartilmaameedsanayo Ilhaan Cumar waxana uu yiri waana waxay u muuqataa ayuu yiri in iyada arintan loola jeedo arintaasi oo xisbiga dimuqraadiga xubnaha jooga intay istaageen ay u sacbiyeen markii Gregory Meeks uu hadalkaasi jeediyay oo isla markaana halkaasi loogu sacbiyay marka sida muuqata saddex xubnood oo muhiim oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ah Ilhaan Cumar laga saaray guddiga arrimaha dibadda iyo Adam Schiff iyo Eric Swalwell oo laga saaray guddiga sirdoonka ayaa hadda guddiyadii ay ka saareen xisbiga Republicaanka markii ay la wareegeen aqlabiyadda aqalka hoose marka arintan waxay u muuqataa mid argoosia oo ay ku argoosanayaan maadaama markii labadii sano ee la soo dhaafay aqalka hoose ay maamulayeen dimuqraadiyiinta ay guddiyadii ay ku jireen ka saareen Marjorie Taylor Greene oo Georgia laga soo doorto iyo Paul Gosar oo Arizona laga soo doorto isla markaana hadallo ay ku bartilmaameedsanayeen oo qatar gelinayay ammaanka xubnaha kula jira aqalka hoose in ay ku dhaqaaqeen sida darteedna looga sameeyay amaba xilkii ay guddiyadii ay ku jireen ay uga qaadeen marka waynu arki doonaa Ilhaan Cumar waxa hadii ay racfaan ka qaadato oo guddiga anshaxa ee Kongareeska ay u gudbiso in guddiyadaasi lagu soo celiyo Kevin McCarthy waxa uu sheegay sidoo kale in arintan ay guddiyadii kale ay ku jirtay ay ka sii mid ahaan doonto Ilhaan Cumar laakiin guddiga arrimaha dibadda waxa uu yiri waa guddi siyaasadda arrimaha dibadda ay qusayso isla markaana ammaanka qaranka ayaan walaac ka qabnaa hadii Ilhaan Cumar ay ku sii jirto sida hadalka uu dhigay sida darteed uma qalanta ayuu yiri inay guddigaasi ka sii mid ahaato dhinaca kale shalay waxa kulan yeeshay madaxweyne Joe Biden iyo sidoo kalena Kevin McCarthy oo afayeenka aqalka hoose waxayna ka wada hadlayeen sidii loo kordhin lahaa deynta dawladda Mareykanku ay qaadan karto maadaama 19 January ay gaartay 31.4 trilyan meeshii ugu dambeysay waxaana Republicaanku ay dalbanayaan lacagta ay dawladdu qarash gareynayso in wax laga dhimo laakiin madaxweyne Joe Biden iyo xisbiga dimuqraadiga waxay leeyihiin iskuma xirno in deynta dawladdu ay qaadan karto la kordhiyo iyo sidoo kalena in la yareeyo lacagta ay dawladdu bixinayso hadii bisha June ee 6 la gaaro dawladdu waxa ay galaysaa default oo ah in mushaarka shaqaalaha dawladda iyo waliba ciidamada aysan bixin karin arintaasina dhaqaalaha wadanka Mareykanka iyo guud ahaan caalamka ayay qatar ku tahay wadahadaladii shalay aqalka cad ay ku yeesheen Kevin McCarthy iyo Joe Biden waxay sheegeen in ay hayeen kuwa miro dhal ah isla markaana ay isku raaceen in wadahadalada la sii wado sidoo kale madaxweyne Joe Biden waxa uu la kulmayaa maanta in xubnaha madowga ah ee ku jira Kongareeska uu kala hadlayo sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa la sharciyada booliska oo loo marmarin lahaa sharciga loogu magac daray George Floyd Justice and Policing Act oo la soo bandhigay kadib markii George Floyd ay gacanta ciidamada booliska uu ku dhintay hadda waxa jirta in sidoo kale Tyree Nichols ay Memphis Tennessee ay ku dileen 5 ciidamada boolis oo hadda dacwadooda ay socoto California hadda waxa jirta nin kale oo Curyana oo madow ah in boolisku waliba labada lugood ka go'an ay dileen waxayna sheegeen in midi uu watay gacantiisa sida laga arkayay isla markaana sidoo kale uu qof ku dhuftay ciidamadana oo sidoo kale la arkay
iyo qofka maadaama labada lugoodba uu ka go'an yahay in gacmaha uu ku cararayo oo ay toogteen haddana cadaalada dhammayo gobolka California marka madaxweyne Joe Biden waxa uu khudbad sanad kasta uu jeediyo State of the Union la yiraahdo Congress-ka oo midaysan uu ka horjeediyo uu jeedin doona 7 bishan aynu ku jirnay February oo talaadada ku beegan qoyska Tyree Nichols oo Memphis Tennessee ciidamada booliska ay ku dileen waa lagu casuumay iyo qoysas kale oo asxaabtoodii ay jeclaayeen ama qoysaskooda dadkoodii ay jeclaayeen gacanta ciidamada booliska uu ku baxay si ay goobjoog uga noqdaan madaxweynuhuna waxa uu doonayaa inuu halkaas ku cadeeyo in isbedel booliska lagu sameeyo loo baahan yahay sharcigaasina George Floyd Policing and Justice Act la meel mariyo ayuu kala hadli doonaa marka waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha kale ee ka soo kordha aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada meel kastoo aad joogtaan iyo waliba si kastoo aad daawanaysan intaan markale kulmi doono oo saaxiibkiin cilmi waroodin la sida iyo nabadgelyo